السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب سولبا ملو باجوكتيد سولبا مقالك كوسو غارايو مالي وناكسن هبي وناكسن وقت وليبا ay ku tahay oo wanaagsan. waxaan rabaa inaan laba halka iraado kulanka weyn ee Super Sunday. waxa Chelsea iyo kooxda Arsenal. Arsenal oo la celin layahay xilli ciyaareedkan. dhan waliba way ka dhisay Arsenal. koox celisa ayaa la layahay kooxda Arsenal ee. balse maalinta Brita afarta galabnimo waxay imaan doonaan garoonka kooxda Chelsea. markaas wixii kala dhacaa wala arki doonee. horaa loo yiri waraa jiri doone wiish kale ha yeelo muuqaalkaas rabaa inaan wax yar ka iraahdo saadaalinteedana ka dhiibto adigana qaybta hoose fikirkaada iyo saadaalintaada ka dhiibo balse inta muuqaalka gudaha u galin waxaan kaa codsanaynaa marka hore saaxiib haddii ay tahay markaadii kugu horeysay oo muuqaalkan kaa soo horbaxo beejka follow dheh waxaan ku soconnaa waddadii 10,000 kaliya waxaa ka dhiman wax ka yar 800 qof haddaad hore ila joogtay waa ku mahadsantahay mar kaleeto la joogistaada iyo la jaaqaadkaada muuqaalkaan inta qabatid صاحبنا وشارك هاي سانو هنا صاحب قاليا سيدا ديكو كله سو دواده صاحب يال واي هاي اسكو سو وناكسن markale صاحب يال سوبر سانداي تشيلسي اي ارسنال كوخدي ارسنال اهد عيارتkan waa la celin laayay oo waliba kooxdii Bayern Munich aheyd 18 kulan aan laga soo adkaanin ayay inta qabteen beerka ka xashariyeen waliba second half si xun u weerareen 3-1 ayay geeyeen Bayern Munich iyo Harry Kane ba way celiyeen kooxdii Arsenal aheyd Arsenal ciyaareedkan boos waliba way ka dhisan yihiin saa hore kugu sheegay oo ciyaaryahankii dhaawacma booskiisa lama tabaayo kaaga sii darane dhowr weeraryahan ayaa Arsenal dib ugu soo kacday oo kulankan ka qayb qaadan doonta Arsenal iyo macallin Arteta xilli ciyaareedkan ma yahay xilli ciyaareedkoodii ee horyaalka Premier League ee qaadi lahaayeen sidoo macallinka Arsenal ka u dhawaajiyay Yogores waa available oo waa la heli doonaa muddo sidoo kaleeto sidoo Champions League ka dhawaajiyay aad iyo aad ayaan wixii saqaba kulanka Chelsea garoonka Chelsea inaa ku laabto aan ka wacdareeyo ayuu yiri markii ay soo dhamaatay ciyaartii Bayern Munich mudooyinka banaga la celceliyayba dhinaca kale kooxda Chelsea taageerayaasha kooxda Chelsea war aad iyo aad u farxad weyn ayaa shalay u soo yeeray markuu macalinka kooxda Chelsea press conference ka bixiyay big news ayaa shalay kooxda Chelsea u soo dhacay maadaama u soo laabtay lambartenkoodii oo Palmer waliba ku darso macalinka Chelsea wuxuu yiri Palmer waa available kaliya ma uusan dhihine waliba uu ku soo bilaaban karaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay kooxda Chelsea wali dhaawac waxa ugu maqan difaacoodii mayalka adkaa ee Colwell balse kulankii Barcelona iyo wacdarada ay dhigeen iyo shabaq sida ugu alaalsadeen kooxda Barcelona miyay ku celi karaan Arsenal oo shabaqooda miyay u diidi karaan ciyaaryahanka reer Brazil ee 18 jirka ah Estevao mar kale miyay wacdaray doonaa Cole Palmer iyo Estevao isla wada ciyaarayo Brito miyaan arki doonaa kooxda Chelsea mar waliba oo lagu batay sida aniga ku aqaano maadaama aan ahay taageeraha ugu weyn kooxda Chelsea kooxda Chelsea alaaba waxa lagu yaqaanaa kooxda la celi waayo oo maaro loo waayo inay qabtaan ay dhahaan meesha iska fadhiiso kooxda la gurantay waa kooxda Chelsea sida daraadeed kooxda Arsenal aheyd af libax ay Brito ku dhici doonaan waxaan ku qariimahayo kustasho oo xaniyaada soo fuul baalinta Brita difaacyadaada iyo ciyaartooydaada macna staffkaada hore u soo kaxayso maalinta Brita haddii aan kugu qabto garoonkaas yar wixii kugu dhacaa dadweynaha caalamka oo dhan ayaa marqaati ka noqon doona Chelsea alaaba looguma baran wax la yiraahdo hordhac oo waabis ah ama ciyaartooyda Chelsea iyo taageerayaashooda inay faanaan balse faankooda iyo ficil ayaa u dheer oo garoonka ayay ku soo bandhigaan waan la soconnaa xilli ciyaareedkan hadda socda kooxda Chelsea kooxdii PSG aheyd oo kooxaha Premier League madax ka martay koox waliba Europe dhinac ka martay Champions League ku guuleystay ayay inta qabteen 3 gool geeyeen goolna u diideen koobkiina sidaas ugu qaadeen mar kaleeto ayay qabteen kooxdii horyaalka Premier League ku guuleystay ee Liverpool 3 dhibcood ayay ka dhigteen mar kale ayay qabteen kooxdii ka socotay horyaalka La Liga ee Barcelona 3 gool inta la geeyay ayaa shabaqa laga ilaalsaday kooxda Chelsea alaaba waxay ku jiraan mar waliba oo big game oo dhacayo Chelsea mar waliba kooxda Chelsea iyo koox kale markay wada ciyaarayaan oo big game yahay waxa la buubuuniyaa kooxda kale Chelsea alaaba waxay yihiin mar waliba kooxda ku jirto underdog sida daraadeed kulanka Brito waraa jiri doonee wiishka ha yeelo haddii aan saadaaliyo aniga kulankaas wuxuu ku dhamaan doonaa 2 gool waxba ee kooxda Chelsea ku adkaa doonto waxaa laga yaabaa inaad ka xumaatay saadaalinteeda tani waa saadaalinteeda adigana qaybta hoose ee fikirka nala wadaag saadaalintaada xur ayaa u tahay oo waxa dhacay maahan aniga saadaalin kaliya ayaa dhiibtay ka xumaan hadalkayga inta kulmi doono muuqaalka xiga oo maalinta Brita ah marka ciyaarta sidaan u dhamaato haddii laga adkaado oo 3 dhibcood laga qaato muuqaal kale ayaan soo duubi doonaa waliba ahaan balya ah balse hal su'aal ayaan qabaa haddii ay kooxda Arsenal ay badiso maalinta Brita
maadaama hadda Chelsea ayagu markay u imaanayaan ay ku hogaaminayaan 6 dhibcood Arsenal haddii beri adkaadaan 9 dhibcood ayuu tegi doonaa horyaalka sidaas biyo ku dhamaaday sababtoo ah labadii Manchester iyo kooxdii Liverpool ba ahayd lama hayo haddii ay kooxda Chelsea 3 dhibcood ka qaataan ay u jarsadaan kooxda Arsenal ma la isdhihi karaa horyaalka Premier League tartankiisii wuxuu dib ugu soo laabtay kooxaha London ila wadaag fikirkaada qaybta hoose haddii aan ku celiyo mar kale saadaalintayda Chelsea ayaa ku adkaan doonto maadaama ay ku ciyaarayaan gurigooda 2 gool iyo waxba adigana qaybta hoose fikirkaada nala wadaag inta kulmi doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo